السلام عليكم maanta waxaan idin soo gudbinayaa film soo baxay 2008 waxaana la yiraahdaa The Stoning of Saraya fadlan ka hor inta aynaan muuqaalka u guda galin like sar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga mahadsanid filmku waxa uu ku bilaabanayaa nin journalist ah oo lagu magacaabo Faridon Saycham wuxuu gaarigiisa kaga xumaaday isagoo maraya bartamaha wadada Iran wuxuu istaagay wadada si uu sugo gaari kale oo halkaas soo maraya wax yar kadib bas ayaa halkaas soo maray waxa uuna u kaxeeyay tuulo u dhaweyd oo lagu magacaabo Kubaya Iran Zara ayaa tuulada joogta waxa ayna aasaysaa lafa ay cuneen yeeyada waxay u soo laabatay gurigeeda waxayna arkaysaa Faridam oo la jooga nin makaanika ah oo lagu magacaabo Hashim ninkii makaanikada ka shaqeynayay ayaa u diiday inuu u hagaajiyo gaariga ilaa ugu dambeyn markii dambe uu siiyay lacag dheeraad ah Zara ayaa raadiyo ku aragtay boorsadii Faridan waxayna aqoonsatay inuu yahay journalist way u timid waxayna u sheegtay in tuuladan ay leedahay xaqiiqooyin madow laakiin waxa ka soo dhaxgalay mas'uuliyiintii tuulada Sheekh Xasan iyo Ibrahim nimankan ayaa iyada ku tilmaamay tuwaalan kana eriyaday meeshii laakiin nimankan kumaysan qanacsaneyn joogitaanka ninkan journalistaha ahaa markii ay su'aalo weydiiyeen waxa ay ka codsadeen inuu la soo qadeeyo iyaga laakiin Faridan ayaa ka diiday oo waxa uu wax ka cunay tuulada lagu magacaabo Kafaya waxa mar kale u timid Zara oo ku tuurtay warqad ay ku jiraan laf iyo maapka gurigeeda kadib Faridan ayaa soo dabagalay waxa uuna iska ilaaliyay in la soo dabagalayo isaga waxay u samaysay shaah waxayna uga sheekaysay qisadeeda oo waa uu duubay isna sheekada waxa ay bilaabatay toddobaadyo ka hor Zara waxa jaar la ahayd Saraya oo qabay Cali oo ahaa nin arxan daran markastana waa uu garaaci jiray iyada wuxuuna rabay inuu furo Saraya oo uu guursado gabar 15 jir ah oo lagu magacaabo Mary laakiin umaysan ogolayn oo ciyaalka iyada kaligeeda ma korin karto Cali waxa uu la hadlay sheekhi magaalada sheekha ayaana ka diiday wuxuuna u sheegay Cali inuu u adeegsanayo qolo wax disha markii dambe sheekhi waa uu ogolaaday sheekhi ayaa u tagay Saraya inta Zara waa ay dhageysanaysaa sheekhi ayaa u sheegay inay aqbasho furiinka oo ay ka soo baxdo doorkii xaasnimo wuxuuna ku yiri Cali waxa uu qaadanayaa wiilasha adigana waxaad qaadanaysaa gabdhaha gurigana adiga ayaa heesanaya sida ayuu ku yiri sheekhu ama Cali inuu iyada soo booqdo oo ay haato xaasku meel gaar ah Zara ayaa soo dhaxgashay kuna qaylisay sheekhi una sheegtay inuu ka baxo guriga Zara ayaa weydiisay Saraya xiriirka kala dhaxeeya ninkeeda Cali waxa ayna jawaab uga dhigtay inay tusto dhaawaca uu u geystay jirkeeda saacada kadib markii Saraya ay caruurteeda siinaysay cashada waxa yimid Cali wuu ku qayliyay waxa uuna ku yiri waxaad ceeb ii gelisay tuulada maadaama aad aqbali weyday furiinkii wuxuu la hadlay wiilashiisii waxayna wiilashiisu ku qayliyeen hooyadooda oo ay u sheegeen inay aqbasho furiinka markii ay ku qaylisay ninkeeda wiilkeedii weyna ayaa soo kacay wuxuuna ku yiri sidaasi oo dhan ha ula hadlin aabaheena Cali ayaa ku amray inay gurto alaabta laakiin markii ay ku xanaaqday waxa ay dhulka ku riday alaabtii Cali ayaana ku yiri alaabta lacagteedii ayaa laga rabaa Saraya ayaana isku dayday inay ka haysato labadeeda gabdhood balse Cali ayaa dharbaaxo ku dhuftay laakiin Saraya waxay go'aansatay in ay baxdo oo waa ay ka haysatay caruurteedii waxayna u tagtay Zara taasoo u sheegaysa inay u tagi doonto ninkii caabin lahaa iyada wax yar kadib hadalkoodii waxa soo dhaxgalay Hashim kaasoo u yimid Zara si ay uga caawiso xaaskiisa oo aad u xanuunsanayd markii ay banaanka u baxday waxay aragtay Cali oo naag kale la saaran gaari laakiin markii ay u tagtay Hashim xaaskiisii wayba dhimatay waxayna habeenkii oo idil Zara la joogtay Hashim si ay meedka u maydho sida caadada ah sheekhi ayaa u yeeray Saraya una sheegay in Hashim uuna isku wadi karin shaqadiisa iyo cunugiisa wuxuuna doonayaa in ay la shaqayso Zara Saraya ayaa sheegtay inay lacag ku sameynayso sheekhi ayaana aqbalay markii ay timid waxa la hadlay Ibrahim una sheegay Zara inay afkeeda ilaashato hadii kale wax kale ay la kulmi doontaa Saraya ayaana bilowday inay la shaqayso Hashim la shaqaynta Hashim Saraya waxa ay noqotay gabar faraxsan waxayna bilowday inay tasho dhar iyada ay samaysay lacagta ay dharka ka soo heshana waxay u dhiiban jirtay Zara si lacalla hadii Cali ay isfuraan ay u hesho lacag ay caruurteeda ku meel mariso habeenada kamid ah Cali ayaa sheekha u sheegay in Saraya ay gogol dhaaf la samaysay Hashim ay ciqaabteeduna tahay in lagu dilo dhagax
sheekha ayaana sheegay in Saraya aysan waxaasi samaynayn. Cali ayaana u ballan qaaday inuu raadin doono cadayn uu ku qabto Saraya si uu uga argoosto iyada. Maalin ay fasax ahayd, Sara waxay caruurteedii u raacday beerta. Waxay soo ururisay uwaxyada, waxayna keentay gurigii Hashim. Si kadis ah waxa u yimid Hashim, wuxuuna ka codsaday inay la casheeso. Saraya waa ay ka diiday, laakiin Hashim ayaa u sheegay oo ku yiri aniga cuntada keligeyga ma cuni karo. Maalin maalmaha kamida Zara ayaa aragtay sheekhi oo la hadlaya Cali iyo Ibrahim. Waxay soo dabagashay Ibrahim oo ay weydiisay waxa ay ka hadlayeen. Wuxuuna sheegay in Saraya looga shakisan yahay in gogol dhaaf ay la samaysay Hashim. Zara ayaa markiiba dharbaaxo ku dhufatay Ibrahim. Zara ayaa u tagtay Saraya una sheegtay waxa socda ee iyada looga shakiyay. Sheekhi iyo Cali ayaa u yimid Hashim, waxayna ka dalbadeen inuu cadaymo ku furo Saraya, laakiin waa uu diiday. Waxaana loogu hanjabay in la dili doono haddii uu cadayn ku furi waayo Saraya. Hashim ayaa aqbalay arrintii intii uu wiilkiisii u dhiman lahaa aabe la'aan. Markaasi kadib Cali ayaa Saraya qasab kaga soo kaxeeyay gurigeeda. Cali waxa uu bilaabay inuu jidka ku garaaco Saraya, isaga oo sheegay in ay khiyaantay iyadu. Markaasi kadib waxaa meeshii soo dhexgashay Zara oo meesha ka soo kaxaysay Saraya kuna qarisay meel kale. Laakiin Cali ayaa u yimid, sidoo kale Ibrahim ayaa yimid. Waxayna sheegeen in Saraya uu gacanta ka taabanayay Hashim, laakiin Zara ayaa diiday arrinkan. Saraya ayaa iyaduna tiri in dadka loo dhimriyo waa wax wanaagsan, laakiin Hashim ayaa soo galay. Wuxuuna yiri xiriir ayay ila samaynaysay, isagoo ka baqanaya in la dilo. Markaasi kadib waxaa tuuladii oo dhan iskugu soo baxay dadkii oo idil. Waxaana la socday sheekhi tuulada iyo Saraya aabaheed Morteza Ramzani. Saraya aabaheed ayaa yimid xili Saraya ay gurigeeda joogtay. Markii dambe waxaa lagu dhawaaqay in Saraya ay dambiilo tahay, waxaana la isku diyaariyay in dhagax lagu dilo. Markii Zara ay maqashay warkan, waxay isku dayday in Saraya ay meesha kala baxsato, laakiin waxaa soo celiyay niman badan. Saraya waxay macasalaamaysay caruurteedii, waxayna isku diyaarisay geeri. Zara ayaa u ballan qaaday inay ilaalin doonto caruurteeda. Dadkii tuuladu waxa ay bilaabeen inay god qodaan oo ay dhagaxaan soo urursadaan. Sheekhiina waxa uu hagaagsanayaa garka, halka Ibrahimna uu isna tukaday. Saraya wiilkeedii yaraa ayaa u yimid, laakiin kii weynaa weli waa uu necbanaa hooyadii. Zara ayaa timaha u hagaajinaysay Saraya una heesaysay. Saraya waa la soo diyaariyay, waxaana wadada ku sugaya dadkii oo dhan. Markii meesha la keenay waxaa yimid gaari dalxiisayaal ah, laakiin isla markiiba waa laga eriyay meeshii. Kadib waxaa Saraya meesha looga saaray dharkii madooba, waxaa loo soo reebay dhar cad, waxaana lagu riday god. Inta hoosena waa loo aasay, inta kalena banaanka ayaa loo soo saaray. Aabaheedii ayaa ku tuuray labadii dhagax ee ugu horeeyay, laakiin labada marba waa uu la gafay. Haweeney ayaa sheegtay inay tani cadayn u tahay inaysan dembi galin Saraya. Kadib Cali ayaa dhagax ku tuuray, wuuna ku dhuftay. Kadib sheekhi ayaa ku tuuray, kadibna waxaa ku tuuray caruurteedii. Kadib waxaa dhagaxaan ku tuuray dadka tuulada degnaa oo idil ilaa ay ka dhimatay. Markiina waxaa meedkeedii qaaday haweenkii tuulada, waxayna ku soo tuureen webiga, halka ay raggoodii dabaaldegayeen. Zara ayaa iyadana waxa ay ninkii u sheegtay wixii dhacay oo dhan, wuxuuna ku diyaarsaday cajalad. Ilaa markii dambe Hashim uu u yimid, una sheegay in gaarigiisa uu diyaar yahay. Markii ay yimaadeen garaashkii, waxaa yimid Cali, wuxuuna sheegay in arooskiisii la kansalay sababtoo ah gabadha aabaheed ayaa u diiday isaga. Markii dambe Hashim ayaa xaqiiqada u sheegay Ibrahim. Ibrahim ayaa ku xanaaqay sheekhi, kuna eedeeyay dambiile. Wuxuuna ku yiri waa inaan istaajinaa generalistaha inta uusan halkan ka bixin. Laakiin generalistihii ayaa galay gaarigiisii, wuuna la cararay. Waxaana gaarigii hor istaagay ilaaladii sheekha. Markaasi kadib waxaa la burburiyay dhammaan cajaladihii uu duubay, laakiin Zara ayaa u dhiibtay cajalad kale oo guriga u taalay. Generalistihii gaariga ayaa u shaqayn waayay, laakiin Zara ayaa ka hor istaagtay nimankan, iyadoo ku dhawaaqaysa oo oranaysa waa in qisadani ay gaartaa caalamka oo idil. Ugu dambeyn Faraidan waa uu baxsaday. Qisadani waa qiso dhab ah, waxayna ka dhacday dalka Iiraan. Faraidan waxa uu qisadan ka diyaariyay buugaag badan. Filimkuna halkaa ayuu ku dhamaaday. Ugu dambeyn like saar oo subscribe dheh si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. Mahadsanid.